إيمان إلهي هاي نجسي الضمان تود gacan ka xaq daran baa dishay waxaan tacsiin u diray aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qaaradda Australia iyo New Zealand dhammaan shacabka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo familiyadii iyo carruurtii ay ka geeriyoodeen dadkaas lagu laayay meesha sida xaq darrada waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan hay naga siiyo iyagana jannadii Ilaahay ha geeyo waxaan idin sheegaynaa haddii aanu nahay annagu jaaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qaaradda Australia in aanu idan kala xunnahay shacabweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay ku dhacay aan Ilaahay u baryayno in nabadgelyo ay ka dhacdo dhammaanna waxaan u rajaynaynaa carruurihii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadkaasi ee familiyada in Ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo sidoo dadka hore sheegay waxaan isugu nimid tacsi in aan tiiraanyale in aan gaarsiino dadkii ismaamulka deegaanka qoomiyadda Soomaalida ku dhintay magaalada Awday halkaas oo deegaanka Soomaalidu mas'uuliyiinteeda sare iyo madaxweynuhu ay dadaal badan iyo liigool isku galiyeen iyagii oo ka taliyay sida ugu quruxda badan ee nabadgelyada leh iyagii oo ka taliyay soo dhawaanshaha labada deegaanka Oromada iyo kan Soomaalida iyaga oo ka taliyay sidii mataqaanaayay deegaanka Soomaalidu ay dadkii dhibaatadu gaadhay ee Soomaalida ahaa iyo dadkii Oromada ahaa ku noolaa magaalada Jigjiga iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida oo dhan meel kasta ay joogaanba in la badbaadiyo kulli dadku waa dad wada dhashay aragti siyaasadeed iyo mataqaanaa dadyow maaragtay jiritaanka iyo nidaamka federalismka ka soo horjeeda ayaan ku aanayn doonaa habase ahaatee waxay inagana samir yeeban Allah inaga siiyo waxaan markastana ka warsugi doonaa tallaabada iyo shuruucda iyo sharciyada dalka u yaala annagoo mataqaanaa raaci doona aragtida xisbiyeed ee dalka lagu maamulayo nabad inay arrintaas ku dhamaato waan ku baaqaynaa waxaan kaloo aan aan muujinaynaa inaan tilaabada ay ka qaataan si kasta oo dawladdeenu arrintaa uga jawaabto ama tilaabo kasta oo ay ka qaado inaan annaguna dawladdeena ku taageersanahay oo uga dambayno tilaabo kasta oo qaado aan iyada aan kula soconno dagaal waxba lagu helo sida walaalaha ay dhaheen dagaal wiil baa ku dhintay kuma dhasho aad baan uga xunnahay waxaan leenahay ehliyadii iyo dadkii ay ka tageen samir iimaan Allah ka siiyay dhammaanteenba ayaan leenahay aad baanay ugu ammaanayaa madaxdeenu go'aanka ay qaadatay iyo inaan la dhibaateyn dadka masaakiinta ee lagu dhaxno waxaan ku baaqaynaa baaq nabadeed oo aanu leenahay wixii hore dhacay aan waxba lagu darin dawladda iyaga go'aanka ay ka qaadatay sharafta badan wanaagsan aad iyo aad baan ugu taageeraynaa Oromo waa dad walaaladana oo derisna oo isku wadanahay oo Itoobiya wadanahay inta xun meel walba way ku jirtaa dadka inta xun marka dadka xun ee dadka ku dhex jira Ilaahay ka soo qabtaan leeyahay insha Allah samir iyo iimaan Allah inaga siiyo marka dadkaas waxa weeye waa dad walaalaheena waa dad deegaanka ka tirsan waa dhibaato weyn baa dhacday dhaqaale iyo saameynteeda ay leedahay burbur baa meesha ka dhacay marka dadkaasi sida uu gudoomiyuhu sheegay nabadgelyada labada dhinacba deegaanka Oromiya iyo deegaanka Soomaalida nabadgelyada in la ilaaliyo sababtoo dad kala maarmi kara ma aha suuqa ganacsi ee ka jira waa hal suuq baa ka jira suuqaasi Jigjiga u wada ahayd hadda nus milyan ba hadda ka qaxaya oo amnigoogii cabsida haysata darteed laakiin se cabsanina leenahay dadka Oromada oo aamina dadka walaalihiina Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida Itoobiya aad iyo aad baan uga xumahay ugana tacseenayaa waxa kale oon leeyahay ficil la mid ayaanan dadka Oromada ama lagu tuhmayo ayaanan lagu qaadin wax kasta waxa ka fiican in nabad lagu baaqo oo arinta nabad lagu dhameeyo ayaan aad iyo aad u taageersanahay oo soo jeedinaya oo leeyahay in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida maadaama dadkani ay yihiin dad isdhalay isdhexdegay oo weligood la kala rarayn oo Ilaahay kala kaxaynaynin in colaad laga sii abuuro in nabad lagu soo dabaalo ayaa fiican oo hal la siiyo ma leenahay maamulka meesha ka jira hay'adaha nabad sugidda iyo kuwa garsoorkaba iyaga hawshooda qabsan doona iyaan lagu hordhicin iyaan la degdegin sharciga ayaa kulli la waafajin doona cidii waxa ka dambeysay biisnillah waa baroordiin iyo tacsi aynu u dirayno dadkii walaalaheen ahaa
ee ka soo jeeday deegaanka soomaalida Itoobiya iyo deegaanada Soomaaliyeed oo dhanba hadday noqoto Somaliland iyo hadday noqoto Soomaaliya dadka halkaa lagu laayay dad Soomaaliyeed bay ahayd oo garanaysaa aad u tiro badan si xaqdarro ah ayana loo dilay oo garanaysaa wax shinimo ah waxaynu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay qabriga ha u nuuro jannadii firdawsi Allah geeyo waa dad xaqdarro lagu dilay sidaa kadib dowladda deegaanka waxaan u sheegaynaa in ay tallaabo laga qaado aan ahayn dagaal oo isla markaa aan isleeyahay way ku habboon tahay ahna in laga cunaqabateeyo dhinaca businesska iyo ganacsiga taasna deegaankan waxaan leenahay labada shacab waa dad walaala waa dad deris ah dad iska maarma maaha ganacsi iyo dhaqdhaqaaq walba uu naga dhexeeyaa in nabad baan ku baaqaynaa in nabad laga wada shaqeeyo waxaan hambalyo u diraynaa oo kale dowlad deegaanka Soomaalida madaxdeeda iyo shacabkeeda go'aanka ay qaateen ay ku nabadgeliyeen dadka Oromiya ee gobolka ka soo jeeday iyagoo nabad qaba gobolka lagu celiyay waxaan baaq u diraynaa baaq nabadeed aan u diraynaa labada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dowlad deegaanka Oromiya ee dariska ah runtii dadka wax geystay ma ahaan dad wada dhan dad khaas ah oo maartay si kale u fikiray ay arrintan geystay waa arrin xun baaq nabadeed baan marka u diraynaa inaan dadkaasi ay si wada nabad ah ay ku wada noolaadaan oo wanaagsan sidii ay hadda ka horba ku wada noolaayeen annagoo ku salaynayna xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya fikirka ay ka qaadatay ee wanaagsanaa ee ahaa in dadku ay dad walaalaha yihiin dad daris yihiin dad danka wada dhaxaysa yihiin